بسم الله الرحمن الرحيم هذا كاغا ورما dagaalkii shalay ka dhacay runtii horena waan u sheegnay oo qoladan media waa la hadalay laakiin waxaad moodaa inay wax dhaafdaafinayaan kuwa dad masaakiin oo meelahan jooga iyo baalashlayaal iyo cid walba ay wareysanayaan marka arrimahaana looga baahnaa inay cid walba gidaar isku soo toosinaysa ay wareystaan meeshan maamul baa ka taliya maamul baa jooga deegaamada Sool iyo Sanaag iyo Cayn oo SSC la isku yiraahdo maamul bay qaateen way isku raaceen ismadoodii waxgaradkoodii qurba joogtoodii shacabkoodii oo aan cididi hal diidan lahayn baa isku raacay go'aankaasi gaadhay dadkana rabitaankooda ayaa laga turjumaa marka waxaan leeyahay qolada saxaafaddu waa inay rabitaanka dadka horta ay sheegaan oo ka turjumaan mid iska khayr laawo ah oo meelahaas fooda ku soo haya hadday doontaan oo wuxuu doono sheego official maaha waxa official waxa weeye maamulkaasi wuxuu sheego iyo ciduu u idmado taa horta intaasaan leeyahay haddii aan kaaga warramo horaan u sheegay dagaal baa nimankani soo qaadeen kii shalay un baan kusoo koobayaa mudduu socday dagaalkaasi weeraradaasi socday marka kuwii hore waa warar qabaxiisa male kii shalay baan kusoo degayaa goray 6 ama ilaa 5 iyo 6 dhexdooda timekii hadda ma sugi karo laakiin abaaraha ahayd bay weerar ku soo qaadeen weerarku wuxuu ka bilaabmay xoolad dad reer buuraa cabaya ayay biyihii u diideen waa soo weerareen waa soo eriyadeen waxay la soo galeen ciidamadii Khaatumo oo booqod la ku sugnaa halka xabad baa ka bilaabantay nimanka jab iyo halaag baa ku dhacay sida aan horeba u sheegnay ama aad ku aragteen idinka qulina aad sawirateen oo goob joog aad ku ahaydeen oo soo aragteen waxa laga qabtay maxaabiis waxa laga qabtay gaadiid qaaliya waliba oo qiimo leh dhimasho iyo dhaawac bay yeesheen dhaawacyadoodii hadda cusbitaalka yaalin waa la xanaaneeyaa waxaan lagu maqalaa hadda dhaawac bay dileen xalay iyo sida la sheegay wararkaasi wayna soo gaareen yeelkooda waa iyaga iyo dadnimadooda waxay taasi ma waafaqsana waxay khilaafsan tahay xuquuqal insaanka iyo adduunka ayay khilaafsan tahay taa waxaan u daynaynaa adduunkaan u daynaynaa in maxaabiis la hayo gacanta lagu hayo oo waliba aan u malaynayo inay dhaawac yihiin kuwoodii waanu haynaa cusbitaalada lagu daweynayaa maxaabiistoodii halkan aanu ku haynaado dhar baanu u iibinay dad baa u shaqeeya gaara waa dayac tiran yihiin dabeed nimankaa waxaa ku dhacay sida aan sheegayo khasaarahaasi waa gaadhay annaga khasaaraha iyagu runtii sida ay nimanku noo soo weerareen waanan diyaarka u ahayn khasaaraha iyagu ma badna 4 ilaa 6 waa huba anigu saa shalay buu sheegay dhimashada dhaawacu 7 ilaa 10 ama 11 baa jira qaarkood waanu soo aragnay kuwana waa la qaaday khasaaraha iyagu intaasaan kolley aan hubnaa sidaasuu dagaalku u dhacay waana la jabiyey waana laga kiciyey dhulkii diyaarkuuraya ciidamada iyada ayaa ku sugan dhulkii ku sugan maxay ahayd toy iyaguna hadda weeraro ayay soo wadaan baa la leeyahay waanu uga digaynaa وهذا وير سوق هذا محكوم لحية وحي كل عشرة ما كل حية. حال كلو أنا مدحون دجال هاي المشرة أو ما ممكن خاتمه كجو أنا بإنه وحكور هذه إلا ليك ذات صومالي ما أنت وما بهنا وقتي مدقدنا ما تكون عام بحذر بحيان. ما دحوني بعد هاي نين أبويا هنا هاي نين سياسي هاي واتكور حلا الصوت بتي. حال كل المشرة أحمد حالك كلا دوك لو بلغنا درسيدا لو بلغنا وحالك وحوي inay dadka ay gumaysanayaan ee madaxa cagta kaga hayaan iyo dalka aan lahayn ay haystaan inay ka baxaan way xalku nabad baanu ku doonaynaa wada hadal baanu leenahay kaga baxa hadii ay ku roonyahay wixii ka dambeeya sidii in wax na gaareen ba anagoo kale waanu ka bogsan karaa waxyaabaha la gaarsiiyay
haddii xal loo helo tan waa ka bogsan karaa hiirtaanyo iyo aargoos iyo midna u raaci mayno Soomaaliya dhan baan doonaynaa inay isu timaado ma isugu timaado wada heshiiso annaguna waa bridge-kii baanu nahay Soomaali isku xidhay maxaad ugu baaqaysaa maamulka Soolooyo gaar ahaan madaxweynaha maamulka Soolooyo bal inuu mar oon bal dhulkan soo sanaayo Cayn ee Khaatumo la suurahdo maxaad ugu baaqaysaa inuu bal ciimas kala baxo maxaad u fariin kartaa waxaan ugu baaqayaa Soolooyo waxa la waa nin weyn oo dadka kale yaqaan iyo dalkaba maaha riyaalihii ka yimi Boorama iyo meelahaas oo pressure marka uu gudaha kaga waxaysmo ku soo fidin jiray ciidamada ku soo jeedin jiray inuu dhulal aan ahayn qabsadaan oo soo dagaalgeliyay waxaanu filaynaa haddii uu isagu qabsaday inuu maxay ahaytoy waa nin weyn waa nin historyga iyo taariikhda qabaa'ilka la socda inuu ciidamadiisa kala baxo oo ku celiyo dhulkiisii oo dadkan dariska ah ee weligood dariska iyo maxay ahaytoy ahaa uu nabad kaga shaqaysiiyo haddana waxaan ugu baaqaynaa inuu taa yeelo xal maaha wuu fidayaa dagaalkan dagaal beeleed buu isu rogayaa mid qabaa'il buu noqonayaa qabaa'ilkuna wuu garan karaa waa nin weyno khasaaraha ay leeyihiin hadduu saa ku sii socdo idinku ka maamul Khaatumo ahaan goormo ayaa dagaal ka tabsanaysaa waa idin qorshaysan annagu dagaal dee maba wadno sidaan kuu sheegnay intaa difaac baanu ku jiraa waxaanu ugu baaqaynaa inuu ka baxaan dhulka annagoo difaac ku jira ayaanu intaa nabad doonaynaa aan leenahay dhulkii nooga baxa waa nala soo weerarayaa ilaa hadda waxaanu difaac baanu ku jiraa marka wada hadal iyo difaac baanu isku wadnaa nooga baxa nooga abin baanu ku wadnaa dhinaca dowladda Itoobiya waxaa jirtay inuu madaxweyne Soolooyo uu tagay magaalada Addis Ababa halkaan uu ka arkay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Madaxwaynaha waxaa ku sugnaa Dr. Cali Khaliif Galeer oo ah xubnihii G6-ka uu leeyahay magacaabay degmada Taleex maxaa ay warka haysan halkaas oo la sheegaya arrinta hadda halkan waxba kaga hadli maayo Cali Khaliif iyo gruubkaasi de odayaal bay ahaayeen maamulka haddii uu Soolooyo cid kala hadlayo waa maamul Soolooyo maamul weeye halkan dadkana maamul buu dhistay marka waxay ku haboontay dabcan inuu kala hadlo maamulka Khaatumo kala hadlo marka no comment way taasi waxaan hadda kaaga sheegi karaa halkan dhinaca kale madaxweyne Farole oo ka hadlay wuxuu ku tilmaamay inaad tii niman fidno wada oo khalkhal gelinaya deegaanadaasi soo sanaaga Cayn ee Khaatumo la suurahdo arrinta maxaad iga kaga jawaabtaa uma jawaabayo xaajiga uma jawaabayo ma aan dhageysan laakiin waxyaabaha laga sheegayaa wax maaha dadka kan ay u qalmaan inuu ignore gareeyo ummadan oo caaqil iyo codkar iyo salaadiin iyo aqoon-yahan iyo dumar iyo caruur aayahooda ka tashatay in kolley la ignore gareeyo maaha laakiin bal aan dhageysto waxa uu ku hadlay hadda uma jawaabaya